Soomaaliya yiri waxa kale shuuc baa galay nabadii Soomaaliland ay ilaaliso waxa ku sheegaya xamsow Soomaaliland anaga nabadgeliyada mas'uul kama aha anagu uma aanu dirsan nabadgeliyada la'aanta iyaga nagu haya iyaga nagu soo duulay iyaga madafiic la dhacaya ubadkayagii carruurtayadii guryahayagii magaalooyinkayagii haddii aqliga Ilaahay ka suuriyo adniin aad u shaqaysid oo aad ka baqaysid inaad mas'uuliyadda lagu xilsaaray aad ka soo baxdid waxa weeyo aad ku fashilantay inaad annagana dacaydaysid maaha annagu ma cabanayno ma ooyanayno ma calaacalayno waxaanu u taaganahay inaanu difaacno dhulkayaga dadkayaga iyo magaalooyinkayaga dadkaan nagu soo duulay magaaladayadii dul fadhiya oo carruurtoodii Hargeysa iyo Berbere iyo Burco ay nabadgelyo ku seexanayaan wayagiina qaxiyay haddaad arki weyday iimaanka Allah ka qaado waxa weeyaan boos qalada lagu dhiibay madax aadan ahayn baa laga dhigay maanta inaad tahay tolaaye iyo wiilka iyo nacnacda hal joojo aad baan uga xumaay nin aqligiisu ku filayeen oo meekide nin xajirad lagu duubay baa tahay xajiradu wixii ay soo celisun lagu duuban bay soo celisaa marka waxa ku leeyahay prime ministerna ma tihid nin fashilmay baa tahay maanta dhibaatada gobolka ka jirta hadaadan ogeynba iyo cidda cadawga ku ah iyo cidda nabadgelyada baabiinaysa oo aad tiraahid tolaaye iyo hal joojo hal kala xishoodo war naga xishood dhiigga yagii baa dhulka lagu daadinaya hantida yadii baa la burburinaya maantada yadii baa la qaxinaya dhulka yagii baa lagu haystaa wariya xamsow ma garata marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed aanu sheegnaa annagu hadaan nahay dadka gobolka SSC gobolada SSC ee reer Sool waxaanu halkan u joognaa inaan dhulka yaga difaacano oo aan nin kale oo qabiil kale intuu nagu soo duulay aanu oraana dawlad ku ah war dawladana ku heshiisnay ma jirto war SNM iyaga nagu soo duulay war iyaga Soomaaliya burburiyay war iyaga qadiyada aan jirin ku riyoonaya iyaga waxay gashadeen niyadda gobolka Sool inay Soomaaliland ay leeyihiin war ma leedin war kama midnihiin warna idina waanu qaadan dawladnimadu waa wax la isla ogol yahay dawladnimo aynu isla ogolahay iyo wada shaqayn aynu isla ogolahay waligeen ma aynu qaadan idinka anagu soo duulay ciidan la duldhigay nimankana way soo saarnaa Ilaahay iimankii sida ugu dhaqsaha badan qad bay ku rusay qad yar gooch aan la yiraahdo oo ay bohola ka qoteen roobku ugu galo durwaagu ku cuno inta ka hadheena haday si aqli ku soo digin oo nabadgelyo kula bixin waa la qabanaya ama waa la leeyahay marka intaas ku soo gabagabeynaya aad iyo aad baad u mahadsan